سوا قابل قرحنا يدمين كروا عبك درميا ربي قديمي وا كرسوني ذا دير لدي ذكاري دحدنا نامي كدف هلوا الدور مويه الدف غلوا جعيل دحل قال وحده ملوا جعيل دحل قال وحده ملوا سلامي وان كا قادم waxaan maqlay cadeema isbeel inaad hayso adiga hawan haya waxaan doonayaa inaan arko keen soo saar aniga shaqada waan ku cusbahay wadadan waan ku soo dahay adiga kuma tahay isu ka sheeg aniga waxaan ahay askari magaciigana Umar okay hadii sidaas tahay waa kana cadeema ma sanid adiga mudan filimkan waxaa lagu tarjumay studio Farmbroch waxaa meeshan ku qoran gabadha in aan la kufsan waxaa wanaagsaneed aabba intuusan geeriyon ka hor arrintan in oo noo sheego waayo annaka carruurtiisa ayaan nahay in wax naga qariyamaysan walaal dhaxaloo keliya in laga hadlo ma wanaagsana aabbo deeman badan ayuu naga xaliyey marka arrintan waa inaad iska dhaafta adiga hadda waad arkaysaa aabba hanti fara badan ayuu luunsaday deeman fara badanna waa nagula leeyahay laakiin booskoo aabbahay ka tegay aniga ayaa isku dayaa inaan buuxiyo waana buuxinayaa waayo aabbahay gabadha ugu kalsoonaa carruurtiisa ayaa waayo walaashii dadaal gaarkee maanta fiirhe raashinkii ajcina kuu soo samee kalaamuddaa kuu soo suubi hooy aniga gaajo ma hayso iska daa gabartee kaalmagoo raashinka iga qababa igaarkee hoos diidaye igaarkee ani markiis adoogaa iga dhintine aada umurgoodi laakiin ama waxaan ku iloobibo ada iyo walaalkaa sii ba'ad adaa waxaa ii gashi booska adoogaa ad iyo walaalkaane zaa'ida isku jeclaadaan laba qofooda isjecel ayaad ahaadaan labadiina ma arkino waa isku wanaagsaneedeen igaarkee marka hooy runaanta ma aqaan aniga walaalkayga sababta aad boolis nooga dhigtay balse hooyo ma xasuusta aniga markaan yaraa waxaan ku dhihi jiray aniga boolis ayaan noqonayaa hooyo qofka aabba dilina aniga ayaa gacanta soo dhigi doona haddana tii oo kale ayaa haysto gaclisideeda ayaa layga dilay qofka dilina anigoo gacanta ku dhigin nasasho iima taal si kasta ay u qaato waxaan ku qasbanaa dilaagas inaan gacanta ku dhigo marka aniga intaan dilaagas ka qabanaya nasasho iima taal ay soo dhawow waa dhawa cumar gaarkeegaa yimid waxar inaan kula hadla rabo dibaddu soo bax soo istaag adigaan kula hadlaya hooyo kuu soo laabana igaarkee jaakadka sii gashaba haye hooyo qaboo ba'anaa jiraa waaya hooyo wiilkaaga soo uma ekeen qof xanaaqsan waayo wejigiisa dhan wuu bararsanaa yaaqo adna xiratagana iska sheege warbadnidaad aniga mar hore ayaan kuu sheegay arrintan faraha kala bax ayaan ku dhahay aniga iyo ninka madaxda ahaynu waad nuskaan dirtay shaqadaydana khatar ayaad gelisay war adiga waxmaad u mooday inaan aniga dumaashidayda nacbahay ma nacbani adi haddaad jeceshaa anna waa dumaashiday hadda waa dogad soo maha aniga inaan saxanahay teeda kale qolada baaritaanka waxay sheegeen gabadhaas in la kufsanin
riboodkan aniga ma arkin inaad fiiriso ayaa loo baahnaa maxaa yeele kiiskan adiga u xil saarnaa soo moogid waaba laga qaadayaan sideen ku arkaa waana markii ugu horraysay weliba intaan shaqadan ku guda jiray kiis layga qaado waa midka ugu horreeyey sidee ku dhacday in layga qaado aniga iga raali noqo walaal mid ogsoonow adiga aniga kiiskan in layga qaado kuleel iyo qabow ma igu haysa laakiin adiga ayaan kuu baqayaa aniga oo sumcaddaada inay dhunto intaad kiiskan kusii guda jirtna sumcaddaada qasabbaa way dhumaysaa anigaa kaa huba walaal cumar go'aankan aad gaartay ka laabo in aad shaqada ka fariisatid anigana waxaan kuu ballan qaadayaa kiiskan wax ku saabsan inaan gacanta ku dhigo kadib aan kula soo socodsiiyo waa ku baryaa walaal anigu hallay i aamin walaal adiga ma la socotaa marka aad yareed aniga imtixaanka booliska inaan ku dhacay waan baryootamay si aan lacag fara badan u helo oon adiga danahaada iyo mustaqbalkaada aan ka fikiro sidaas ayaan u yeelay aniga shaqadayda waan guta aniga abaalmarin ayaan laysiiyey walaal aniga ma doonayo shaqadan khiyaano inaan ku sameeyo saaxiibadeedana inaan khiyaano ma rabo marka waa ku barya waxaa isku daydaa inaad i fahanto haye maxaad samaynee asxaabtayda ayaan qadka kula jiraa waxaan u malaynaa inaad naga tegi rabto adiga maye waxaan moodaya adigu inaad rooma dib ugu noqonayso aniga waxaan rabaa inaan guriga joogo amba shaqadayda rooma inaan dib ugu laabto taas awal ayaad rajaynaysay waxaan ula jeedaa awalka hore waxaad doonaysa inaad noqoto qof walibana wuxuu jecelaya inuu yeesho shaqo asiga u qaasa tusaale ahaan waxaan ka wadaa inaad dukaan samaysato ama shaqooyin kale ama ganacsi aad geliso hadhowna dadku kugu mashquuli maayaan aniga halkaa inaan joogaan rabaa weliba wax badan waa caadi waad iska joogi kartaa cid weliba danteeda ayay ka fikiraysaa hooyo markuu ninkeeda dhintay kadib danteeda ayay ka fikirtay aslina sidoo kale danteeda ayay ka fikiraysaa cid naga fikiraysaa ma jirto lacagtayadii oo dhanna bangiga ayaa lagu xayiray arrimahaygana qof wax iga weydiina iga su'aalaya weli ma arkin anigu imika waxaan doonaya inaan iskuul dhigto iskuulkiina lacagtan ku dhigan lahaa ma haysto adiga sidaas inaad dhahda maaha annaga marka hore waa nagala fikiri jiray weliba si wanaagsan ayaa noogala fikiri jiray adigana qaasinaa ii taa waad og tahay ma laga yaaba inaan joogo anugu hadda lacag ma haysto lacag la'aanteed meel lama mari karo oo waad og tahay adiguba gurigaygii nayo ku yaalnay dowladda ayaa la wareegi rabta kiradii deynta sidee baanu u bixinaa maxaan samaynaa anigaa kuu sheegaya waxaad samaynaysid marka hore halkan ayaa ka tegaysaa waxbarashadaadu keliya ayaad fiirsanaysaa adiga wax welibane aniga ayaa hagaajinayo inaad fikirta uma baahna aniga kaale walaal waa ballan aan aniga kaa qaaday adeer soo dhawow cashaya imaaga soo gal gudaha okay waan dhowahay aadaa u mahadsan tahay raashinkiina ku baashaala maya hooyo cunno umaanin cumar ayaan raba inaan mar la hadlo cumar soo bax baal mar waaya iga raal noqoyo wax dhiba malaha igaarkeyga waa iska bixi kartaa haye inamari xuseen waxba maskaxdaada gelin anaga bannaanka oo keliya tan ku baashaalaynaa waa i fahanteen hayo hooyo ii baashaalaya hayaabeen wanaagsan maxaa kale haye maxaa kale hawshooda ugu weyna waxay tahay dhismo iyo waxay lahaayeen ganacsi iyo arrimahooda dhan markab ayay ku xayirnaayeen midda kale waxaa jirta waxyaalo aysan xalinin dahabna brograamkooda oo ku jiray arrimaha dahabka sideen ku ogaanaa ganacsi waxaa jira magaalada Roma ka socday kaasoo mar dhow la asaasay dukaanna waxaa laga rabay in laga furo Istanbul barnaamijkaas oo dhan waxaa madax ka ahayd gabadh yar midda ka weyn magaceedana waxaa la dhahaa Elif waa gartay gabadhan aad ujeeda naqshadeenta ay beel ku tahay group ayay aasaastay magaalada Roma ayay degan tahay balse inta waxay u timid baashaal oo keliya intaan hayo waa intaas oo keliya
soo gal mahadsanid adeer ii waran see tahay waa fiicanahay gabadhaydii maxay ahayd lama filaankan maya adeer caadi le ii waran see tahay waan fiicana adeer haye wax dhib mayaa jiro maya haye maxaa cabey maya adeer waad mahadsan tahay aye okay fariiso in adeer waxaan kugu imaaday shuushaan ayaa rabtay inay baxdo sidaas darteed ayaan kugu imaaday inay wax jiraan anigu waa fahmay fariiso waayaha adeer mahadsanid gabadhayda hadday wax jiraan waxbaha iga qarinin hana iga xishoonin wixii jiro si fiican iigu sheeg aniga aabbaha oo kalean ahay ilmihiinana ilmihiigoo kale waa adeer mahadsanid adeer aniga weligay qof wax ma weydiisan xitaa aabbahay laakiin daruufta ayaa keentay annaga lacagihii yaraay oo bankiga noogu jiray waa nagala xayiray mar dhowna bankigina aadna ayaan rabnaa adeer aniga aabbaha markii ugu dambaysay waan la hadlay oo waxaan dhahay aan shirkowno dhul weyn inta iibsano hoteele iyo ganacsi fiican aan ka samayno iyo meelo loo soo dalxiis tago laakiin intaan arrinkaas go'aan ka gaarin aabbaha qadartiisii ayaaba halkaas ku ekeed asigina wuu dhintay qorshaheennina meeshaas ayuu ku fashilmay oo wax soconayna ayuu noqday far kaligeedna fool ma dhaqdo aabbahay dadka masaakiinta ayuu wax siin jiray see deen loogu yeeshay maxaa ku hadlaysaa adiga aabbaha weligiis deen laguma yeelanin shilin oo qof leehan weligiis ma cunin nin fiican ayuu ahaa waan ogahay middaas waa middaan ku wareersanahay adeer adeer aniga mawduucan inaan kugu furo ma rabin walaashay ayuushaa ayaa rabto new york inay aado marka hotel soo nooguma oolin rooshaan ayaad ka hadlaysaa soo maaha middaas ha ka baqin aniga ayaa hadda taleefon diraayo waxeedoo dhanna aniga ayaa dabaraayo tikidkeeda waxbarashada maya ha iga diidin aniga cuntadeeda iyo wax walbay iida u baahan tahay aniga ayay korkeyga tahay waxoo dhan aniga ayaa bixinaayo adiga waxba ha ka baqin arrintaas ka walwal la'aaw gabadhaydi adeer aad ayaad u mahadsan tahay laakiin hal mid ha iga diidin adigane waxaan rabaa lacagta haddii siinaysa inay denigu ahaato dhib ma laha saaribta ayaan ku yeelaya waxaa muhiim ah rooshaan waxbarashada inay kala goyn waaya adeer waan kaasii tagaa walaashay ayaa isugayso waan sii dhaweynaa okay anigana ilaa iridda ayaan kusii dhaweynayaa gabadhayda haye adeer macaan haye adeer abuukaateena wuxuu noo sheegay aabbahay deymo sharci darraa in uu qaatay waan hubaa aabbahay inuu deymankaas qaatay adiga ma hubta arrinkaas waan hubaa maxaa yeele adeer waxaa noo imaaday dad aabbahay deymo ku sheeganayo hana iloobin aniga familkayga inaa mas-uuliyaddooda ee dusha aniga iga saaran tahay si kastay ahaataba dadka deenkaas kule aabbahay waa inaad ii soo ogaataa adiga aniga waan ku dadaalayaa inaan bixiyo lacagta aabbahay lagu leeyahay gabadhayda aniga arrimahaas wax aan ka ogaa haba yaraatee ma jirto midda kale garab aniga kuma sii karo laakiin mid waa kuu samayn karaa inaan dadkaas deenta soo ogaado adeer macaan aad ayaad u mahadsan tahay waa laysku leeyahay maadaama garab aad isiisay waajibkayga ayaan gutay aad ayaan kugu mahad celinaa adeer okay mid ha iloobin walaashaa markii ay baxday xagga tagto taleefon ha iisoo dirto wax walba aniga ayaa u dhammaynaya okay haye adeer kheyran maalin wanaagsan adiga kaligaa intaad bixi lahayd soo kuma wanaagsano inaa hooyo israacdaan oo hooyo fikirkan intuu ka ba'aya aa sugto may aniga waxaan ugu socdaa waxbarasho weliba inaan soo barto sida wax loo sawiro ayaan doonayaa farshaxan miyaa wax lagu helaane lacag badan lagama helo farshaxankii iska daa ayaan ku dhiilay shaqo annaga hayne adiga gabadha ha niyi jibinin haddee safar tahay niyaddaada u fur safar salaam باي باي ولا هويو هويو أنا قاعد يقول ولا يسا معها هوي أنا دي ولا معها واي هدا دي ولا وش الديارة ده وحلقة يابا أنا إلى دعضو أما أنشلك له هويو هوي نيد يفر مركا هويو إما مع سلامين يسد هوي نقدر هذا بقى كالا يا حبسي أنيدي يفر هوي معاني كالا هوي بس هو برصاد هرخاد gabadhaydii gabadhaydii aam hooy bis daba aam hooy
gabadheeda aniga waan ku jeclahay hooyo inaan ku jeclahayna adiga ha iloobin hooyo hooyo haddaad sidan uu sii oydo aniga falaydka ayaa iga tegaya bis haddaba hooyo walaal xaggaad iga qabatayna ma keligay ayaa idiri lahayd soo bax anaa kuu sheekaynaa intaa gaariga saaran saaka adeer ayaan aaday wax welibana waan ku wada hadalay muxuu kugu yidhi adeer ii sheegba taas iga daaya gaarigan ayaa kuu soo diray ii sheeg ma garanay waxaan u malaynaya sekateeriyadii aabba inay soo dirtay adeer wax weliba adiga xaggaaga woo ii damaanad qaaday wuxuu nagu yidhi wax weliba aniga guda aabbaay waan kuu xiisi doonaa aabaayo teeda kale waxaa ogaataa hooyo xaalad adag in ay ku jirto mar weliba inaad soo wacda ku dadaal haa walaalo aniga midaan u tegaya waa midaan adigana waxaan ogahay inaad ii ilaalinayso hooyo ii eegayso intaan maqanahayna sii ilaali hooyo oo ii ogow waayahay midaas anaan kaa ballan qaaday waa kuu xiisi doonaa walaa sidoo kale gaariga maxaa loo joojiyey aamusa adigna gaariga kaxay maxaa sugaysaa idinkana aamusa war maxaad doonaysaa ina aamusana wanaagsan حيوان يا حقا والله waxaad ka helaysaa aniga ma fahansan gabargay waqtiga balantaan kuu qaban waa kuu dhammaaday adiga daymankaa sheegaysid haddii aan ahayo waama kuu keeni jiljilexa ii muujina aamus gabaryey waxaan waxaan ku leeyahay hadalka yaray waxba hanu oyna anaga waxaa isweydiin mudan filimkani waxaa lagu tarjumay lacagta bangiga idintaa loo idil waa la xayray marka ma laga yaabaa dhaymanka meesha u yaal inaad noo sheegto walaal aniga waxba kama oga meeshuu dhaymanka yaallo waan kuu keeni lahaa horaan kaaga ballan qaada haddii aan arkin aan kuu keenaayo walaashaa been ayay noo sheegtay waxaan u malaynaa wixii dhabta adig inaad noo sheegi doonto walaalo waan ku baryaa walaasha ii siidaa adiga ma ogid soo maa waxba kama oga walaalo waan ku baryaa walaasha ii siidaa waxba kama oga aniga dhaymanka war naga fursad aad haysato waa yartahay hadalkayga ma su'aal walbo aan ku weydiiyo adiga ayaa ka jawaabi doona baqbaqdaada way badatay markaan maxaan kaaga jawaaba aniga waxba meel kuma ogi walaal iska kaydaa iga horleejiy waxan walaal
labadeennana wadadaa waan kuu keenaynaa waa balan anigii walaashayna wadadaa aniga ayaa iga rabtaa daymanka walaasha aniga ay casuuman tahay walaalo waan ku baryaa walaashay kama tagaaya aniga waan ku baryaa walaal xitaa aniga waan ku baryaa walaashayga yar waan ku baryaa walaashayga siida waan ku baryaa walaalo walaashayga walaalo waan ku baryaa wadadaa walaashay maxaa ku samaysay xagee u socotaa soo laab fariiso walaasha way caafimaad qabtaa anaga ayay nala joogtaa adiga waa diida luulka meesha u yaal inaad noo sheegto haddaba shuruucdiina aan kuu sheego hadhow si aan isaga hor imaanin aan kuu sharaxo haddii aad isku daydo arrinkeen inaad qof kala tashato ama inaad baxdo booliska aad aado waxaad la socotaa walaasha hilibkeeda inaan cadcad u jaraa adigana ay kugu adkaanayso si aad iskugu keeni lahayd waad ifahantaan filaa gabaryahay haddii aadan rabin adiga aabbaha dhinaciisa in laguga aaso saan filaayo waxaan ku faray waad samayn doontaa aabbee ma adigaa dilay weliba dhaymankaas dartiis miyaa u dishay war mala socota adiga aabbaha hadduu dhaymankana sii lahaa anaga inaan dili lahayn miyay kula tahay aabbaha asigoon dhaymankana siinin ayuu dhexda ka bax sidaas darteed aniga waxay ila tahay marba aabbaha hadduu dhintay dhaymanka inaad adiga gacanta ku hayso sideen ku ogaan karaa walaashay inay caafimaad qabtay in kale walwalka iska daa adiga walaashaa wax dhib ah ma gaarayaan marka hore walaashay codkeedii maqashiy haddii aad rabti inaan dhaymanka kuu keeno inaad la hadasho maad doonaysaa haddaan kuu wacaa ee iga sii wada gabadha soo soco ruuso soco sii daame soco isdeji ayaan ku lehay soco amarka qaado yaanan dhaawac kuu geysan qaado badroonigiina hadalka uu ku dhahay waad xasuustaan oo malaynaa inaadan qof wax u sheegin soo guda fariis maxaad la taagan tahay fariiso saaxib
sidaan filaayo taladii axmed dinasaar adiga ma raacin sirtiina waa sheegtay soomaha ii sheeg ma sheegtay aniga waxba ma sheegin waa ku dhaarnaa waxba ma sheegin aniga waxba ma sheegin waxaa waaye bis aniga maaragta ma sheegtay maya oo haa aniga waxba ma sheegin laakiin haddaadan sheegin see annaga sirteen oo dhan lagu ogaaday aniga baabuurkooda aan iska daba socdo bis waxba ma samaynin laakiin oo kale gaarigoodaan arkay waana iska dabagalay bis intaas lee waaye wax kale ma jiraan mudana waa ku baryaa haddaadan adiga sheegin sirteena sidee ku baxday ninkaas siduu noo soo dabagalay annaga middaas ma ii sheegi kartaa adiga ninka hadduu dhintay aniga farahaasoo dhanba waa ka tala baxay faraha ka qaaday bis waa ku baryaa iska kay cafi mudane ma samaysay mise ma samayn waa samay laakiin iska kay cafi mudane waa ka baryaa haa mudana waa ku salaamay ninkaana mudunkiisa ayaad marsiisay middeeda kale annaga hoolii aad noo dirtay siday rabna waa u qabnay balse ilaa hadda waxba maysan noo soo bixin waayahay gabdhaha markaad qabatay wax ma ka ogaatay ii sheeg runaantii annaga iliif cabsi ayaan ku abuurnay waxaan kala hadalnay arrimaheena inaysan qof kale u sheegin haddii ay u sheegtana inay dhibaato la kulmayso waaya okay haddii sidaas tahay wax walba haddaynoo fududaanayaan هلو ما waxba iga cabsan inaan ku cabsi geliyo huma tala gelin boolis ayaan ahay ha isku dayin arrimeena inaad booliska la socodsiiso haddii kale walaashaa hilibkeeda aad ayaan u jiraynaa isku day waxa kugu dhacay inaad ii sheeg waxa kugu dhacay walaalo waa ku baraya qof ay daba jooga iga har kaale ila hadal dhibkaaga aniga xalinay kaale ila hadal warmaay ma qashaadiga qof ay daba jooga ayaan ku dhamaadi aamus ila hadal wax baan ku tusan rabaa bahashan maragta waa dheeman waxaan ka helay baabuurka dhexdiisa gobol kalena waa hayaa waxaan ka helay guriga saaxiibadee fahanti halo yuuya aniga dhinacaada taagan ya aniga naakaali ma anigaad indhaha caray iiga shubaysaa inaan kuu jeeda miyay kula tahay adiga walaalo qalada iga fahansan tahay aniga ninka dhinacaada taagan ma askariya oo arrimahayna miyaad kala hadashay sow aniga kuma dhin arrimahayna haddii aad qof u sheegto inaan walaashaa dilayno war ninkan askari miyaa ii sheeg adiga ayaan ku weydiinaya maad ilaa hadashid ninkan ma askari baa waa saaxiibkay been baad sheegaysaa walaalo waan kuu dhaaranaya ma aaminaysid miya war ma anigaad isku dayaysa inaad been ii sheegto walaasha nafsadeedani halis ayay gashay middaas la soco yaa abaayo maxaa kugu dhacay dhib miyaa jira ya maxaad samaynaysaa walaalo waa dhibaataysanahay icaawi waan ku baryaa